lafabeeliddu waa marka ay hoos u dhacaan cufnaanta lafaha. Sida caadiga ah, lafaha caafimaadka qaba waxay leeyihiin daldaloolyo u muuqaal eg sida shumaca malabka mise kawarka honeycomb. Haddii ay daldalooladaasi noqdaan kuwa cabirkooda korodha, waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa osteoporosis, halka afkeena hooyo lagu dhaho lafabeel. Lafabeelka wuxuu kordhinayaa cabirka daldaloolada lafaha. Taa waxay caqabad ku noqonaysaa awoodda iyo cufnaanta lafta. Haddii dadka qaba lafabeelka isku dayaan inay sameeyaan jimicsi, waxaa sahlanaan kara inay si fudud lafahooda ku jabaan. Lafaha ugu badan jaba waxaa ka mid ah sida feedhaha, miskaha, lafdhabarka. Bulshaweynta caalamkani ku nool, lab iyo dhadig wuu ku dhici karaa xanuunkan, laakiin waxaa aad ugu nugul haweenka caddaanka iyo Eeshiyaanka. Dumarka qaaradda Aasiya ku nool, gaar ahaan kuwa caadada joojiyay, lafabeelidda waxaa loogu hortagi karaa dawooyin, cunada caafimaadka leh iyo jimicsiga. Bukaanka xilliyada hore wax calaamado ah laguma arko, laakiin marka ay lafuhu beelaan, awoodda iyo cufnaanta, calaamadaha lagu aqoonsado waxaa ka mid ah dhabar xanuun, dherer lumid, jab, qaabka xoodaaman waa markuu qofka hoos u dhigo madaxa hore u qaado. Lafaha aadanaha waxay caado u leeyihiin inay si joogto ah u soo saaraan lafo cusub, iskana saaraan lafaha gaboobay. Qofka markuu da'yar yahay, waqti yar bay qaadanaysaa soo saaridda lafaha. Taana waxay kordhinaysaa awoodda iyo cufnaanta lafaha. 20 jirka kadib, degdeg samaysanka lafaha hoos ayuu u dhacaa. Dadka intooda badani awoodda iyo cufnaanta lafta halka ugu sareysa waxay gaarayaan da'da 30 jirka. Qofka inuu ku dhaco lafabeel waxay ku xidhan tahay awoodda iyo cufnaanta u kaydsan, gaar ahaan kuwa la kaydiyay xilliga 20 jirka ka hor. Awoodda iyo cufnaanta lafaha waa la kala dhexlaa. Sidoo kale, dadyowga caalamka ku nool way ku kala duwan yihiin. Waxaa u nuglaan kara haweenka marka la barbardhigo ragga, dadka da'da ah, dadka qof ka mid ah qoyskooda qaba lafabeel, dadka lafahooda liita. Qaabka ugu wanaagsan loogu hortagi kara lafabeelidda waa in la qaato cunada isu dheelitiran iyo joogteynta jimicsiga. Haddii xanuunkani la daweyn waayo, waxaa dhici kara jab sida lafdhabarka mise miskaha. Jabniinta waa halista ugu badan ay la kulmaan dadka lafabeelka.